السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقيمة بدن وضد بدن ومسلمين كفرحية يا عاوز صويري وركني فرنقين أيين وكوسمين دونا وركني وحاو توسوي من ذلك مصر يوم من ذلك مصر عبد الفتاح السيسي ووجه الصبح وبنان كلا الصباحي عالم كمسلمين تكفرحية بل إسرائيل كنحية وما هي وحاو وكل واقع وربعين الجزيرة أيين وفيرين دونا ciidamada Masar ee maanta la soo bandhigay isbeddelka xoogan iyo guuxa ka socda gudaha dalkaasi iyo Abdul Fattah al-Sisi oo markii ugu horeysay ku dhiiraday in uu bedelo lahjadii uu ku hadli jiray ee ku aadanay dhinaca Israa'iil iyo galbeedka maxaa isbedelay warkani ayaynu ku fiirin doonaa khiyaarta wada nagala socotay soo dhawaada qodobkaas ayaynu isleenahay aad jexjeexdaan iyadoo isbedel badan warbaahinta caalamka oo dhan ay markaasi muujinayso Abdul Fattah al-Sisi oo bedelay lahjadii iyo habdhaqankii isagoo caawa ugu yeeray Israa'iil inay tahay nidaam dadka baabi'iya oo markaasi mid cadow ku jiritaanka bariga dhexe iyo nabad inuu sii ahaado waayahay qof kasta muuqaalkan soo gaar horta aragtidaada noo reeb qayb commentiga noo reeb share garay oo meel fog gaarsiiyo weeyaan shar mar aad baad ma santahay tolmaan ayaanahay inuu guda galno bal si qadiyadan iyo waxan kulaylka ee uu hadda dabka ka soo qaaday al-Sisi aan u faahno aan wax yar dib ku celiyo asbuuci hadda dhamaaday horaantiisii ra'iisul wasaaraha Israa'iiliinta Benjamin Netanyahu ayaa hadlay wuxuu ka dhawaajiyay in xuduudda Masar iyo Sinai waxa ka socda ay yihiin wax aan culays badan ku haynin maamulkiisa wuxuu markaasi sheegay in aanay jirin wax cabsi ama feejignaana oo Israa'iil ay ka qabto halkaasi maxaa yeelay waan isku hubaa ayuu halkaasi ka sheegay wuxuu waan isku hubaa wax meeshaas ka jira iyo cidda maamulaysa sidaas daraadeed wax nooga soo kordhi doona ama dhibaato nooga imaan doonto xaggaas ma jiri doonto wuxuu bahdilay awoodda Masaarida wuxuu hoos u dhigay dawladda dalka Masar shacabkeeda iyo dawladnimadeeda wixii intaasi ka dambeeyay qaranka Masar u tartama kubadda cagta wali waxaan ku jirnaa gooligi maanan u galin warbixintan caawa taagan qaranka Masar u ciyaara ee koobka adduunka jooga ayaa wax uu cod dheer ku sheegay in isbedel weyn uu ka jiro gudaha dalka Masar gaar ahaan dadka shacabka ayna u arkaan maamulkooda mid aan matalin dadka shacabka sidee mar walba waxay ku celcelinayeen qadiyadda Falastiin qadiyadda Gaza wax saas ku celcelinayeen markay gool dhaliyaan dadka markaasi dabaashaaday sidaas ay sameeyeen haddaba hantii caawa ayay daboolka feeday maantay dalka Masar ciidamo gaar oo ku hubeysan hub casri qalab military iyo waliba noocyada kala duwan ee diyaaradaha drone-iska awood baaxad leh ayaa maanta lagu soo bandhigay magaalada Qaahira madaxweyne Abdul Fattah al-Sisi oo si aan looga baran ku labisan dharkii military ninka ugu sareeya ee xukuumadda ciidamada dalkaasna ayaa halkaasi soo xaadiray waxa halkaasi ka jeediyay khudbad lama filaana taasi oo muujinaysa in waayihii deganaanshaha iyo dabacsanaanta ee Masar ay soo dhamaatay muxuu sheegay madaxweynaha dalka Masar Abdul Fattah al-Sisi ayaa sida al-Jazeera lagu qoray waxa uu halkaasi ka sheegay khudbad uu markaasi ugu magac daray in markaasi Masar aanay markaasi fiirsan doonin in amnigeeda la farafarayo sidoo kale wuxuu sheegay in Israa'iil sinaba aysan xiriirkooda uusan u sii jiri doonin oo xiriirkii hadda laga bilaabo uu soo dhamaaday yaale Abdul Fattah al-Sisi iyo Masar oo la Israa'iil xiriirkeena waa dhamaaday sidoo kale Masar waxay sheegtay inay wali ku taagan tahay mowqifkeeda inay ka soo horjeedo laynta caruurta iyo gaaguntirkooda taasi oo ku tilmaantay inay tahay qad aan laga gudbi karin warbixinta al-Jazeera sidoo kale waxa lagu sheegay madaxweyne al-Sisi si aan loogu baran uu farta u taagay isagoo carabka qaniinaya isla markaasna muujinaya in Masar ay sinaba xiriirka Israa'iil u sii wadi karin maxaa yeelay Israa'iil waxa ay ku suntan tahay laynta caruurta iyo burburinta guryaha iyo xaafadaha dadka markaasi maatada ayuu yiri madaxweyne wuxuu sheegay in xiriir kasta oo horay u jiray maalinka maanta la soo afjaray oo Masar ay markaasi ka baxday ayuu yiri wax walba oo xiriir ahaa oo caadiyan ay horay u lahaayeen Masar iyo Israa'iil intaas ku daray in marka la fiiriyo gobolka waxa ka socda iyo guuxa ay Masar la mowqif tahay marnaba aanay ka dabci doonin qadiyadaasna aanay hoos uga dhici doonin
arrintani waxay noqotay mid weyn oo caawa aad loo falanqeynayo TV walba oo bariga dhexe ku yaala warbaahin walba bariga dhexe ku taala habeenka caawa waxa ay ka hadlaysaa waxa Fattaax al-Siisi afkiisa laga maqlay ma dhabba mise waa dhalanteed يعني وايي إسرائيل iyo Masar ayaa soo dhamaaday dadka waa ay gali laaday bal adiga aragtida qaybta comment